بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شنكين كيف يدخل عشرين امتحانها إكسل كان برشة إكسل عشرين امتحانها سي سعودي waxaan ku baranay sida table-kii ugu dambeeyay sida loo sameeyo exam-ka imtixaanka loo sameeyo table kaliya markaad xog kaliya sameynaysid cashirkeeni labaad waxaan ku baran doonaa sida markaad imtixaanka diyaar galinaysid midka imtixaankiisa ama mid exam-kiisa aad u diyaar galinaysid iyo final exam-ka aad u diyaar galinaysid kadibna aad u soo saaraysid result-iga ama jawaabtii arday walba intuu keenay imtixaankii midkii iyo finalkii total percentage iyo grade-kiisa aan xisaabi lahayn ayaan cashirkana ku baranayna markaad exam-ka timaadid xogta taasaad baranaysaa haddana cashirkan joogin cashirkii hore muuqaalka hore soo daawo muuqaalka hore ayaan saarin u xisaabin doonaa kabacdi markaan imika waxaad imanaysaa middle-kii iyo finalkii markaad imtixaanka ardayda middle-kii waxaad gelinaysaa ID number-koogii kabacdina name-kii baad gelinaysaa kabacdina marka xogtooda gelisid maadooyinkooda baad gelinaysaa waa mid exam-ka kaliya ta result-giisii totalkii baad kala garanaysaa kabacdina waxaad ku dhufanaysaa equal waxaad qabanaysaa equal markaad halkaa tiraahdo waxaad oranaysaa sum baad oranaysaa bracket baad furaysaa kabacdina ardaydii waxaad totalkii ku qoraysaa imtixaan mid exam-kii arday walba intuu keenay ayaad ku qoraysaa haddii ay imika wada 100 baan kasoo qaadnay tusaalaha haddii 60 ay ka qaadaysaa amba 40 ka qaadaysay wixii ay keeneen ayaad halka ku qoraysaa kabacdina halkaas qabanaysaa waad soo jiidaysaa totalkii arday walba intuu keenay mid exam-kii wataas kabacdi finalkana saas laga ayadu xisaabinaysaa kabacdi waxaad oranaysaa equal sum bracket kabacdina sidiis legba total oo samaysaa sidaas soo jiidaysaa kabacdina interval siinaysaa halkaas soo jiidaysaa kabacdina halkaas soo jiidaysaa marka halkaas soo jiidid full buu noqonayaa xisaabtii automatic buu xisaabinaya ka ugu dambeeyay markaas sida markaad mid exam-kii iyo final exam-kii baad heshid ardaydii waxa lagaga baahan yahay result-igi inaad xisaabisid natiijadii ardayda inaad xisaabisid haddii aad macallin tahay oo aad arday wax u dhigaysid school ama madrasad amba wax kabacdi markaa halkan waxaan doonaynaa inaan soo geliyo halkaa formula gelinayna si automatic inoogu soo qaadaysa totalka mid exam-ka mid exam-ka halkan waxaan gelinaynaa formula geleeyadana halkan finalka exam-ka totalkiisa tolana soo qaras kaliya waxa weeyaan marka saas soo waantay waxaad timinaysaa equal baad taabanaysaa marka saa equal timaatid bartay ku qorantay mid ayaad soo kala garanaysaa kabacdina totalka ugu dambeysa ayaad soo kala garanaysaa marka formulada ku gelaysa waa taas ku gelaysa equal mid calaamada G5 kaas ku geliya kabacdina enter ayaad siinaysaa si automatic ayuu kugu soo qaadaya halkaas ugu gelinaya markaad wax ka fahmi ma gelinaysid kabacdina waa soo jeedaysaa dharaagaas dhammaan si automatic ayuu kugu soo gelinaya haddii mid exam-kaagu uu isbedelo waxa ka bedeshay final result-kaaguna way isbedelaysaa si automatic ayay isku bedelaysaa aad wax ma bedelaysid halka labaadna sidiisa labaad marse waxaad qabanaysaa marka ugu horeysa equal baad qabanaysaa kabacdina waxaad tegaysaa meesha ku qorantay final kaas aad kala garanaysaa halka ugu sareysa aad kala garanaysaa okay kabacdina enter baad siinaysaa waa intaas gebigiisu si automatic ah kugu soo qaaday formulada waxaan u gelinaynaa sababtaan u gelinaynaa waxa weeyaan haddii marka halkaas 900 iyo 4 maaha mid exam-ka intuu keenay haddii uu isbedesho oo halkan abti ku bedelo halka aad u saxdeedo 85 aad uga dhigtidba qalad ay ugeeda u bedeshid marka halkaas ay isku bedeshay 99 ay noqoto halkanna toos bay isku bedelaysaa si automatic 399 bay noqonaysaa marka result-iga ardayga ugu dambeeyay si automatic isku bedelaysaa marka si automatic isku bedesho formuladana si automatic isku bedelaysaa kabacdina haddii aad qalad saxday arday aad wax u saxday waxaad hagaajinaysaa maadada intuu keenay baad dhibcaha hagaajinaysaa formulada result-iga dambe si automatic ayay isku hagaajinaysaa kabacdina halkanna totalkii baan gelinaynaa numberada waxaan soo qaatay si tusaale ahaan adiga boqolkiiba dad ardayga siinaysa boqolkiiba ku xisaabinaysaa dad 500 xisaabinaysaa dad kun ka dhigaysay ayaad ka dhigaysaa markii markaan 500 5 maadan ka soo qaaday waa finalkiya min 100 marka waa kun bay noqonaysaa labadana la soo geeyay marka sambanorna labadana saas ku soo jeeday inta 700 markii nagu kun bay xisaabinayna marka saas soo jeedaysaa ardaydan labada imtixaan oo marka la isku daro midkii exam-kii mid walba waxa 500 kabacdi kun bay isla noqonaya kunkii arday walba intuu ka keenay in gelinina
kabacdi waxaan u bedelaynaa si xisaabtan inoogu fududaato oo percentage-ka grade-ku inoogu yaraado percentage baan u bedelayna percentage-ka sideed u bedelaysaa waxaad ugu bedelaysaa equal baad qabanaysaa sidii tii hore kabacdina equal baad noqonaysaa marka waad isku soo geynaysaa labadan marka isku soo geysid 500 iyo 500 baan garabnay imise noqonaysa 1000 bay noqonaysaa waxaad u qaybinaysaa 1000 ayaad u qaybinaysaa markaasuu noqonaya 79 bay noqonaysaa marka qof aad isku keenay 79 percentage-ka saasay soo jeedisay marka ardaydaadii intay keeneen sidaasay percentage-kii ugu soo baxay kabacdi formuladii garaadhkii bay halkan gelinaysaa si automatic wuxuu is wada bedelayaan haddii mid examka ardayga wuxuu saxo wuxuu is wada bedelayaan halkan waxaan gelinayaa if exam baan gelinayaa if tii baan gelinayaa kabacdina if baan qoranayaa bracket-kan furanayaa markaan bracket-ka furto criteria-dii layna siiyey markii hore kale waa inaad haysataa oo ah inay 90 wixii keena aan siino 90% wixii ka sareeya aan siino wixii 75 ka sareeyana aan siino b wixii 60 ka sareeyana aan siino c wixii 50 ka sareeyana aan siino d wixii ka hooseeyana aan f siino saasaan sameynayno kabacdi markaad f tii qabatid meeshii logical test-ga la yiraahdo ee click garanaysa waa kan percentage-ku iyo logical test-ku okay bas marka okay siisid waxaad oranaysaa keeda marka soo samaysid greater than shifting plus greater than ka taabanaysaa kabacdi halkan waxaad ku qoraysaa 90% 100% baad ku qoraysaa kabacdina comma qoraysaa 100% hadduu ka sareeyo maxaan siiyaa weeyaan marka laba column baad samaynaysaa shift a soo samaynaysaa kabacdi formuladii comadaas ku soo xidhaysaa markaad comada ku soo xidhid waxaad bilaabaysaa formula kale oo haddii uu ka yiraahdo inta aan sameynayo idan waxaad doonaysaa if bracket kabacdina maxay meesha aan sameynayno h6 haddii ay ku kaligareysmo weydo meesku uu saa ku kaligareysmo waayo xarfaha ku qoran baad soo qaadanaysaa h6 oo maha halka h6 ka soo qoraysaa h6 baad taabanaysaa marka isaga ku dooraya kabacdina greater than 75% shift iyo percentage way isku qabanaysaa si uu percentage-ka kugu qoro comma u qoraysaa laba dhibcood shift b laba dhibcood comma haddana haddii uu intaa noqon waayo haddana waxaad samaynaysaa if saddexaad ayaad samaynaysaa if bracket kabacdina ma qori karino ma kala garan karayo imika maadaama formula dheer qoray marka maxaan sameynayaa ht iyo 6 ayaan kala qorayaa kabacdina shift iyo bracket-kan qorayaa marka intii qoro waxaan qorayaa maxaan eegaynaa imika markana waa inay ka hooseysaa 60 iyo ka sareeya percentage comma 60 maxaan ka dhigayaa c baan ka dhigayaa kabacdina comma ma qorayaa haddana if afraad baan sameynayaa oo ah dd in ka dhigayna if bracket kabacdina h6 greater than greater than 50 conton percentage markaad saa u dhamaysid eed comma tiraahdid c ka dhig tiraahdid d ka dhig tiraahdid marka waxaad ogaataa inay formuladii kaa dhamaatay waxa ku hadhi kaleeta hal haddii ku hadha xisaab oo ft ah waxaad oranaysaa otherwise weeyaan comadaas dambeed qoraysid marka soo xidhaysid otherwise weeyaan otherwise f ka dhig baad qornaysaa haddii kale f ka dhig haddii intaa noqon weydo f weeyaan oo filed ama filed baad ku qori karaysaa qoraalna waad qori karaysaa f keliyatan waad ka dhigaysaa amba waxaa ka dhigi karaysaa saasaad ka dhigaysaa file oo f-na file buu tagayta file oo dhicitaan oo kaleetaad wada qoraysaa dhammaan kabacdi waxaa arday fara badan soo weydiisa badanka imise bracket baa markan formulada isticmaalaya waxaad tirinaysaa inta f soo samaysay 1 2 3 4 4 f baan soo sameeyay 4 bracket ma ku xidhay 1 2 3 4 markaas interface marka kii ugu horeeyay wuxuu b oo ka sareeyo maadaama 75 ka sareeyo waa b
marka bidii halkaas imanaysaa saasay usoo jiidaysa dhammaantood hal mar buu ka xisaabinaya kii dhacay maa maxay 50 wixii gaadhay maadaama 50 wixii ka sarreeyo 50 wixii ka sarreeyo weeyaan 50ga qofka laftigiisu keenay u dhacay saasuu marka 50gana noqonaya kuwa 3 noqonaya d buu keenay kaasuna kaasuna saasuu noqonaya sida loogu xisaabiyo ardaydana sidaas ay weeyaan fadlan ka faa'iidayso wixii su'aalo qabtana commentiga kusoo qor like and share subscribe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته